عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دوادا صاحبيال حرجينا إن عافماد قبتين دمانتينبا كسو دوادا جانال كينا فسون إي مقال كينا مانتا waxaa ku falanqeyn doonaa taxanihii dhawaan soo islaaday season-kiisii ee dhaxal ka soo saarnaa shaashada Astaan TV. waxaan kula wadaagi doonaa ama ku falanqeyn doonaa muuqaalkan wax kasta oo kaga baahan tahay inaad ka ogaatid taxanihii dhaxal. intaan u gudagalin waxaa ka codsanaya haddii aad tahay saaxiib nagu cusub inaad channel subscribe inoo saarto, haddii aad tahay saaxiibada hore noo joogin waxaa ka codsanaya inaad muuqaalka inoo like gareyso si saaxiibo badan u gaaro, lana sii wadaagtay saaxiibadaada wixii fikir iyo talaahna nagula wadaag qaybta faalada ama commentiska. aan gudagalna marka falanqeynta taxanaha dhaxal horta sida magaciisa ugu jeedno waa magac aad u qiimo badan ama magac aad u weyn oo culays iyo xijmi leh, maxaa yeelay wuxuu ka hadlaa waxyaalo dhaxal ah. dhaxalka marka laba shay noqon karaa, mid dhaxalka oo midka u naqaano ah waalidka markay dhintaan oo kale hantida ay ubadka ugu tagaan ayaa waxaa la dhaxal, waxaasay ka dhaxleen. dhaxalku wuxuu kaloo noqon karaa in qofka uu ka tago wax wanaagsan oo uu tago bulshadiisa, sidaasna ay u noqdaan dhaxal. marka mar la weydiiyey directorka filimka oo ahayd maxay tahay ama base muxuu ku yahay filimkan dhaxal ama misalke, wuxuu ku sheegay inay tahay sheeko laga sameeyey bulshada Soomaaliyeed noloshooda. saawad ognahay nolosha bulshada markii la hayo isku mid maahan, way kala duwan tahay, kuwa hoose, kuwa dhexe iyo kuwa sare. marka isku soo duub filimka dhaxal wuxuu ka hadlaa sheeko laga sameeyey nolosha Soomaalida. marka waxaan dul istaagi doonaa dhowr qodob oo ugu horeyso dadka filimka directorka ah, hogaamiyaashiisa, inta xalqadoodu yahay, sheekada filimka, sheekooyinka siday u dhacayaan iyo doorka jilaayaasha. afartaas qodob ayaan u hadli doonaa muuqaalkan. marka koowaad dulmarka taxanaha wuxuu ahaay horta filimkan waxaa director ka ah Abshir Raage, waxaana filimka hogaaminayo ama actor ka ah yarka la gala diiriye, waxaana filimka actrad ka ah gabadha la yiraahdo Duniyo, taasoo ayadana ku matalayso qof indhaha ama physicalkiisa xoogaa aan dhamaystirnayn oo indhaha la. xalqada uu ka kooban yahay season-kiisa waa ilaa 15 xalqadood, waxaa la daawanaya usbuucii 2 habeen oo ah habeenada Khamiista iyo Isniinta ayaa la soo deynayay. sheekada marka filimka ee ku saabsaneed waxay ka imaanaysay 3 angal ayay ka imaanaysay, oo qoyska sheekada familka Rooble iyo familka Deeriye iyo familka Duniye, kuwaasoo sheekooyinkooda aysan ahayn sheekooyin isku mid ah, qolobo meel ayay sheekadeeda micno ka lahayd. haddii aan ku hormarno sheekada filimka oo qaybta Duniye iyo familkeeda, sheekadoodu waxay ahayd sheeko in maxaa la lahaa aabihii familka oo ku tiirsanay uu hayay oo meesha ka baxayo ama uu geeriyoonayo ama gacan ka xaq daran ay dilayso. maxaa yeelay xalqada 7aad ee filimka waxaa ku daawanay Duniye iyo aabaheed isla socdo, oo aabaheed gabadhiisa wax u sheegayo, kala dardaarmayo wax fiican, ayaa qolo aan la aqoonin ayaa inay meel ka soo baxdo ayay waxay leeyihiin hebel adi maaho, sidaas ayay ku dilayaan. marka taas sheekadaas marka waxay ku tusinaysaa filimka in maxaa la lahaa ay jiraan dad oo maxaa la dhahaa masaakiine oo aan waxba galabsanin haddana la dhibaateynayo, dhibaatadiina ay ciqaabteeda marayaan ciyaalkiisii. maxaa yeelay haddii maanta aabaha familkaas u noolaan lahay, hooyadii noloshii gurigii way qaabil kartaa, laakiin nolosha hooyada midka banaanka aad ayay u adag tahay. marka sheekada Duniye waxay tusayaan in la dulmiyey oo ay dulmiyeen dad ayagoo dhan wax qalad ama wax dhibaato aan hore u geysanin ayay filimka sheekadooda ku jilayaan, ilaa ugu dambeyn ay gabadhii aragga ka beesho. sheekada labaad oo filimka oo dhaxda ku jirto qolada familka dhaxaadka ah waa familka Deeriye. familka Deeriye wuxuu filim ku matalaa marka waa qof maxaa la lahaa macalin iska ah oo noloshiisa mid iska dhexdhexaad oo ah qof alyoomkiisii ama qudul daruuriga maalintii la ahay soo dhacsan karo. sidaas ay tahay maxaa la dhahaa wuxuu xiriir la sameynaa ama uu jeclaanaa famil gabar ka hanti badan ama ka dhaqaalo badan, oo markii xiriirkiisii iyo guurkii uu soo bandhigtane oo gabadhii loo deerinayo. gabadhi intay ka imaanaysaa waxay la dhalatay Rooble in dhalatay. Rooblena filimka wuxuu ku matalaa inay yihiin aabihiis inuu ahay qof hanti haystay oo ah qof taajire. kadib markii reerkii ay ogaadeen in gabadhii oo guursatay ninkaas la yiraahdo Deeriye ay rabto inay guursato,
sidaas ay gabadhii guriga banaanka ugu dhigayaan ay guriga ka saarayaan. gabadhiina markaas diiri guursaday xaalada caafimaad la imaanayso, reerkii u tagay inay caawiso waa loo diidaa, maxaa yeelay hantidii dhan waxaa la wareegay Rooble. Rooblena waxa waaye wuxuu ku matalaa qof familka markaas curud u ahay oo rabay inuu isku haynayo reerka, balse wuxuu samaystay inuu hantidii kaligiis oo maxaa lahaa oo maamusho ama oo isla heysiyo kale. halkaas marka waxaa ka dhalanayso cadaawad ama khilaaf ah labada famil, maadaama ay xidideen, xididkaasna uusan noqonin midkii saxda ahay, ay noqotay mid isku bedeshay cadaawad kadib markii Rooble uu hantidii dhaxalka ahay oo maxaa la dhahaa isla heysiyey. halkaas marka waxaa ka dhashay micnaha filimka magaciisa oo ah dhaxal, maadaama deeriye uu dhalay galadne oo abti u yahay Rooble. galadka marka isaga wuxuu ku dadaalaa sidii maxaa la lahaa, maadaama loogu sheekay hooyadiis inay xanuun u dhimatay oo caafimaad ah, aabihiis dhaxalkii ama hantida ee lahaydne uu la wareegay abtigiis oo isla heysiyey. in badan bulshadana waa arintaasoo kale, sheekooyinka Soomaalida way ka jirtaa, dad sidaasoo kale u dhibaataysanaya jiraan oo dhinaca familiarka ah. marka sheekadaas kalena halkaas ayay xiise ka lahayd. marka galad wuxuu isku dayaa marka in maxaa la dhahaa uu reerkii iyo inuu la xidido oo maxaa laasi at least uu ogaado hantida hooyadiis meesha ay ku dambeyso iyo hooyadiis waxa ay leedahay. sidoo kale waxyaalaha aan ka fahmayn waxaa ka mid ah, maadaama dadka famil la yahay, maadaama familka kore oo aabihii oo familka oo hantida oo Rooble ah iyo galad aabihiis ay yihiin laba qof oo aan is arki karin, balse awlaadda ay dhalaan waxaa dhici karta marka waxyaalo isku soo dhaweynayo kale oo maxaa la inay is xiriiriyaan, inay is wehayaan. sidoo kale marka sheekada kale oo filimka xiisada leh waxaa waaye waxyaalaha dhaxmar ama dhibaatooyin ka dhasho dhalinyarada saaxiibada ah. yarka la yiraahdo Haroon waa yar iska dhalinyaro ah oo inuu iska baashaalo iyo waxyaalahaas iska jecel yahay. asxaabtiisa mid ka mid ah ayaa marka wuxuu sameynaa marka gabadha walaashiis Haroon, maadaama ay tahay qof dhaqaale haysta famil ka soo jeedo, inuu xiriir la sameeyo. yarkii Haroonna marka uu ogaanaa in yarkan waxa uu yahay iyo wix kasta uu yaqaanaa, gabadha walaashiis markuu ka arko wicitaanka uu soo waco, markii uu dhaho ninkan nin fiican ma aan iskaga had, waa tay walaashiis ay ka diideyso. marka sheekadaas waxay ku tusaysaa gabadha yarka saaxiibada ee dhalinyarada ah, qofka walaashiis ma uu ogolo qof markaas uu isaga yaqaano oo xaalad ama dhaqan xun uu ku yaqaano, sababtoo qofkan wax uu galo iyo wax uu gudo ayuu yaqaanaa. taas marka waxaa ka dhalanaysa marka in yarkii Haroon uu naceeb u qaado yar kale oo saaxiibkiisa, walaashiisna aysan aaminin laadahay waxa uu sheegayo. markaas marka dagaal wuxuu u galaa isagana oo in sidii maxaa la lahaa gabadhan oo walaashiisa sidoo ninkan uu reebi lahaayeen, maxaa yeelay maadaama uu xaqiiqda u sheegay oo dhahay ninkan nin fiican maan iskaga har ay ka diiday, wuxuu sameynaa marka in ninkan uu dabagalo ilaa ugu dambeyn uu muuqaal ka soo duubo, muuqaalkaasna u soo diro walaashiis si ay u aragto qofkan ka xigsanayso inuu yahay qof aan wanaagsanayn, sidaasna uu ugu diidayo inay xiriir la sameyso. marka sheekadaas dhalinyarta inta badan way ka dhacdaa oo way jirtaabo. qodobka kale oo ugu muhiimsan waxaa waaye doorarka ama dadka doorarka jilayaasha filimka, maxaa yeelay dadka wax jilaayo waa dad kala duwan, waxayna ciyaarayaan roolal kala duwan ama doorar kala duwan. doorka ugu koowaad waxaa iska leh actorka ama galad wuxuu filimka marka doorkiisa ku jilaa qof maxaa la dhahaa markaas oo humble leh oo maxaa la dhahaa xaalad adag ku dhex nool, oo hadday noqon lahayd waxbarashadii, shaqo la'aantii, dhinacna loo sheegaya in hooyadiis maxaa la lahaa hanti badan awowgeed ugu dhinto kale uusan helin, sidoo kale in uu qof naxariis badan yahay, maadaama gabadhan uu mar arkay kadibna uu isku dayayo inuu rajo geliyo ilaa ugu dambeyn uu ku guuleysto inuu isbitaal geeyo, balse ugu dambeynkii isbitaalka qalinka in loo guuleystay in kale si sanada kale ku arki doonaa. marka isaga marka wuxuu sameeyey marka qof rajadiisa dhimatay ayuu rajadiisa soo nooleeyay. sidoo kale wuxuu matalaa marka maadaama labada reer oo Rooble iyo Deeriye ayna is arki karin, inuu dhaxdooda maxaa la dhahaa isku soo dhaweyn inuu wax ka sameeyo, maadaama ninkan abtigiisu yahay, ninkan aabihiisu yahay, meesha hantida taalana ee hooyadiis wax ku leedahay loo sheegay something inuu wax un isku xireeyay ayuu isku dayaa.
si uu noloshiisa maadaama nolol adag uu ku nool yahay uu shaqo la'aan yahay inuu ka faa'iideysto. Doorka kale oo filimka waxaa iska leh aktarada ama duniyo marka ayada filimka waxay ku jilaysaa qof aan aragga la oo physical leh, sidaas ay tahay ayadoo aragga la ayay waxay muujinaysaa inay tahay qof nolosheeda hami ka leh oo rajo adduunyo leedahay, iyadoo hataa ka sheekeynaysa waxbarashadeeda iyo sida u jecleed. sidoo kale ayadoo araggaas la ay maadaama familkooda dhaqaale xumo ay haysato, yar walaalkoodna uu baalash leeyahay uu casay kasoo shaqeynayo, maadaama xilligii waxbarashada uu joogo ayay waxay samaynaysaa in habeenkii markuu imaado isagii uu daalan ee wax sii barto. xitaa habeenada qaar markuu saad u daalo kale inay iska cafiso ee iska seexdo. marka waxay ku muujinaysaa haddii qofka aragga uu laayahay hataa wuxuu awoodaa in qofka ka yaroo kale wuxuu uu yaqaan markaas wuu u gudbin karaa. sidoo kale doorka kale waxaa iska leh gabadha la yidhahda Hani oo ku matalaysa maamulada bangiga dhalayna Rooble. ayada marka doorkeeda waxay ku muujinaysaa markii reerkooda ay isku dayaan in maxaa lahaa ciyo u guuriyaan, ayadana ay rabto in nafteeda ishormariso ee horumar gaarto ilaa ay ugu dambeyn hataa yar nabreed yihiin loo keeno oo hataa dhowr wada sheekeysi dhex maray oo xitaa wax kasta loo dhahay waa ku sameynaynaa, balse waxay ku adkaysatay hamigeeda inay rabto qof meel iska soo saarayo. ayadana doorkaas ay u misneyd. doorka kale waxaa iska leh yarka la yidhahdo Haaruun, kaasoo isagana maxaa lahaa dagaal u gala inuu walaashiis ka difaaco kale qofka maxaa la dhahaa oo maxaa la dhahaa saaxiibkiisa xun oo kale ama saaxiib aan wanaagsanayn markii walaashiis xiriir la sameeyo kale inuu isku dayo inuu walaashiis badbaadiyo oo dagaalo badan oo u galayo nacayb badan oo u qaadayo saaxiibiis. sidoo kale ninka fikirka ugu weyn iska lahaay oo saayidka oo dadka ula qabsadeen waxaa waaye yarka la yidhahdo Lookaan isagoo filimka wuxuu ku matalaa qof family curud u kaasoo haddana familkii iyo wixiisa aana ka warqabeynin, oo maxaa yeelay tiis ayuu u yaaban yahay oo dragaskiisa iyo wixiisa ayuu iska raadsanaya. sidoo kalena wuxuu sameynayaa in uu dadka dhac ku sameeyo kale oo waxyaalo tuugnimo inuu sameeyo. tuugnimada uu sameynayo sida uu jilaayo iyo qaabka uu sameynayo perfect waay. sidoo kale marka meeshaas waxaa ku arkaysaa haddii aad isku dayday inaa waxaadan sax ahayn inaa qof kula hortagtay oo kale aad isku dayday inaa ku dhacday oo kale, waxaa laga yaabaa qofkii midkii saxda inuu haysto sida aan ku aragnay xalqadii baabuurka markii ay istaajinayaan oo ay rabaan inay dhacaan oo kale hub feelsay wateen, waxaa loola soo baxay hub oo sax ah. marka taasna waxay ku tusaysaa in waxay ka wacyigelinaysaa marka dhalinyarta qaare oo isleedahay maxaa la lahaa waxaan wax ku dhaco kale ayay waxay ugu samaynaysaa qaybtaas wacyigelin ay ugu samaynaysaa. doorka kale waxaa iska leh gabadha nadaafadda ka shaqeynayso kale oo ayadana ku jilayso kale maxaa la lahaa ama door ay qaadanayso maadaama aabaheed la dhahay waa la dilaa, aabaheed oo keliyana ay haysato inay maxaa la dhahaa oo luu qasbayo baahi looga faa'iideysanayo. baahidaas oo ah inay aabaheed badbaadsato. si aabaheed u badbaadsatana waxay ku xiran tahay in qolooyinkan ay shaqooyinkooda u qabsato ay u qabtaan oo ah inay flash ku geliso computerkii. doorkaas ayay ayadana ciyaaraysaa si u badbaadsato aabaheeda. dhammaan dadka filimkaas qayb qaatay si fiican ay u wada jileen. sidoo kale waxyaalaha kale ugu miisan oo filimka loo daawan karo waa sheekadooyinka aadka u quruxda badan iyo sida loo sameeyey iyo sida laiskugu agaasimay iyo sida maxaa la loo duubay perfecti ahaayeen. marka waxaaba sugnaaba seasonka labaad ee xilligii la soo daayo. haddii aad tahay saaxiib nagu cusub inaad janaag subscribe inoo saarto, muuqaalkan inoo laagareyso si saaxiibo badan u gaaro, noona sii sheergaray lana sii wadaag saaxiibadaada. wixii fikir iyo faalahan noogu wadaag qaybta commentiga. sidoo kale xalqadii aad markaas oo soo jeedatay inaad noogu wadaag qaybta faalada ama commentiska. mahadsanidin.